السلام عليكم أصحابتي الغالية. ما أنتم حنكهد لينا menopause وحاول مركز ديجا كارد معه واي menopause مركز ومهم إن مركز تو مهم أن كهد لنا وحيابها نتود dadkeena kama bahadlaan qaarkood ma yaqaaniin qaar ayagoo yaqaano kama hadlaayaan marka waa muhiim inaan markasta aan ka hadalno aanan ka aamusin arrintanaytood waa arrin annaga na qusayso waa arrin caafimaadkeena wax u dhimayso waa arrin oo xoog leh markastaba amiirkeena wax u dhimayso dhimirkeena wax u dhimayso xoogeena wax u dhimayso annaga dhan na qusayso waa na saameynayso caafimaadkeena na saameyso asxaabiyay aan ka hadalno arrintanaytood aad u fiirsada marka waxaan ka hadlaynaa waxaa ku ogaan kartid waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha aad sida isaga maamuli lahayd qof kastaba siday u maamusho ayay ku xiran tahay jirkeena aan waxaa ka qaban lahayn annaga aan isku ilaalin lahayn ay ku xiran tahay marka menopause waxaa marka dhiigga ka istaago ay see ku ogaanaysaa inuu menopause kugu soo socdo menopause waxaa ku ogaanaysaa waxyaabo badan oo aad ku ogaan kartid ay jirto waxyaabahaas intood qaar kaliya aan ka hadlayna kulli lagama hadli karo marka mid ugu horeysa aan ka hadlayno waxa waaye dhiiggaada qalqal oo noqonaya dhiigga qalqalkiisa waxyaabo badan ay keeni karo menopause ka keeni karo dhiigga inuu cudurro kale aad qabtid laga yaabo marka waa dhakhtarkaaga inaad kala hadashid markastaba dhakhtarkaaga u tag kala hadal dhakhtarkaaga dhiigga ka qaadaya uu ku sheegaya inuu menopause kugu soo socdo marka muhiim inaad ogaatid taasaytid dhiiggaada qalqal markuu galo menopause kana waxa waaye marka 12 bilood dhiig la'aan ahaatid oo dhiiggaba oo istaago waa menopause ka bilowday waa menopause ka waaye markaas oo waaba qabtaaba haye waxyaabaha menopause oo dhibaatooyinka oo keeno qaarkood waxaa kamid ah marka dhidid fara badan aad iska dareentid dhididkaas ay tood habeenkii hurdada ka kicinaayo oo maanta oo dhan isbabinayso horeyna aan aga soo hadalnay haye maqaarkeena oo noqonayo qaleel muxuu ahaa saan oo kale oo qaleel u noqonayo miintaanaytada oo noqonayo kale haye oo saan miinta u noqonayo ay anaga maqaarkeena waa inaan ka shaqeyno markastaba saanaytood oo kale aan ka dhigno awal saan oo noo ahaa marka saan oo kale noo ahaa maqaarka marka waad arkaysaa sidoo hadda maqaarka yahay waxaan filayaa in kaamirada ay ku tusayso maqaarka markastaba saan inaan ka dhigno waay marka inaan ka shaqeyno waay maqaarkeena annaga aan iska shaqeyno oo menopause aan wax ka qabano menopause marka lafaheena waxay noqonayaan daciif waxay noqonayaan muxuu ahaayay murqaheena waxay noqonayaan daciif marka arrintan aan iska dareeno waa inaan dhakhtarkeena kala hadalno annagana aan wax iska qabano dhakhtar kaliya ma aha waxa naga qabanayo annaga ku shaqale hawshaanaytood qaarkeed dhakhtarka daawo ku qori karaa marka qaar wuxuu ku leeyahay aniga ma ogi waxay ku haayo marka laga yaabo inuu menopause ku soo socdo annaga waay markaan hawshaan loo baahan yahay marka isbabinaysid oo aad xanaaqa kugu bato madax xanuun kugu bato aad wareeraysid waa annaga inaan wax ka qabano waa menopause marka waa muhiim inaan aad aga hadalno menopause oon iswargelinaa qof kasta loo sheega hay soo kuu qabtay maxaa ka qabataa maxaad ka dareentaa aan buun qaadano buun saas aa u qaadatid ma fahmaysaa buun qaado qayli markastaba hadalkan inta qof kasta kala hadal ma fahamtay inaan iswargelino waay laakiin aniga hadda waxaan kasoo hadlayaa sida kuugu bilowdo waay dhiigga oo qalqalo 3 week marka kugu dhacay 3 jeer bishii oo kale mararka qaar 2 goor kugu dhacay bishii oo kale hadoosan cudur kale oosan jirin waay laakiinse ay marka oo dhiigga bil aa gaftid 2 bilood aa gaftid dhiigga waa dareemaysaa waxaanaytood inuu menopause yahay kuleyl iska dareemaysid kuleylkan amrood isbabinaysid ay siyaabo kale aad ka dareemaysid aad xanaaqaad oo kugu bato hurdo la'aan habeenkii dhowr jeer aad ka soo kicaysid oo kuleyl intuu ku qabtid hurdo la'aantaanaytood aad rabtid mar walba inaad isbabiskaasaytood alxamdulillah marka ilaahay yaa naga mootay waxaanaytood laakiin cudur ma ahan ogow waa wax dadka dhan saameynaya qof kasto si gooniyaha ugu dhaca laakiin aqwaanay waa annaga inaan is ilaalino asxaabtayda qaaliga ah waa inaan isla soconnaa ee subscribe ku samee muxuu ahay markaad fiirsato subscribe ku samee aan ka wada hadalno ee iisoo sheega waxaad kala kulantaan mar kastaba iisoo sheega kusoo qora meesha waadna mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mac salaama